asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan khiyaarta kusoo dhowaada Kista TV. Barnaamijkeenan maanta waa warbixin ku saabsan wadahadallada uga bilowday Soomaaliya iyo Ethiopia dalka Turkiga. Waxaynu ku bilaabaynaa horumarka diblomaasiyadeed ee Geeska Afrika, halkaas oo Ethiopia iyo Soomaaliya ay qaadayaan tallaabo lagu xallinayo xiisadda ka dhalatay heshiiskii muranka dhaliyay ee ay Ethiopia la gashay maamulka Somaliland. Mas'uuliyiinta labada dal ayaa ku kulmay magaalada Ankara ee Turkiga si ay uga wada hadlaan khilaafka ka dhashay heshiis ay Ethiopia la gashay Somaliland. Heshiiskaas ayaa Ethiopia u oggolaanayay inay hesho deked ay isticmaasho iyadoo beddelkeedana aqoonsanaysa madaxbannaanida Somaliland. Soomaaliya dhankeeda si adag ayay uga hortimid arrintan iyada oo sheegtay in ay Ethiopia ku xadgudbayso madaxbannaanideeda dhuleed. Khilaafka ka dhashay heshiiska ayaa sababay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dhowr jeer si caro leh uga hadlo isfahanka dhexmaray Muuse Biixi Cabdi, madaxweynihii hore ee Somaliland, iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Turkiga oo door muuqda ku leh gobolka ayaa wada dhexdhexaadinta si looga hortago xiisado hor leh. Bishii December ee la soo dhaafay, hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa ku kulmay Turkiga iyagoo isku raacay in la bilaabo wadahadallo farsamaysan oo lagu raadinayo xal ilaalinaya madaxbannaanida dhuleed ee Soomaaliya, isla markaana ka jawaabaya baahida Ethiopia ee marinbadeedka ay u qabto. Shirkii ugu dambeeyay ee Ankara oo ay hogaaminayeen wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia iyo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyay sida labada dal ay uga go'an tahay in xal nabadeed oo lagu salaynayo heshiiskii Ankara la gaaro. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa shirka ku tilmaantay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhanka xal u helista khilaafka. Wadahadallada xiga ayaa la qorsheeyay in la qabto bisha Maarso. Dhanka kale, Turkiga ayaa sii wada xiriirka adag ee uu la leeyahay Soomaaliya oo uu ku leeyahay saldhigga militari ee ugu weyn oo ku yaala meel ka baxsan dalkiisa. Somaliland oo ku dhawaaqday madaxbannaanideeda in ka badan 30 sano ka hor, weli lagama aqoonsan Qaramada Midoobay iyo African Union toona, waxaana Soomaaliya ay weli u aragtaa qayb ka mid ah dhulkeeda, iyadoo Ethiopia oo ah waddanka ugu dadka badan adduunka ee aan lahayn bad ay dadaal ugu jirto inay hesho marinbadeed. Indhaha caalamka iyo kuwa Soomaalidaba waxa ay ku sii jeedaan marxaladda xigta ee wadahadalladan. Waan la socodsiin doonaa wixii ka soo kordha. Don't forget to like, subscribe and share.